تصوف هو إن نفت اللوع إليه أحكام ربي إن يوهب جان سمته أيها تصوف ليد هذا حدي قلبي هو هجاجه حبنها كلنا هجاجيان حدي قلبي هو حماضنا حبنها كلوي حمانيان تصوفك لما أنت بوا أخلاق وقفك خلقي سؤال توسيه وشريعة الإسلام كلجو توسيه ونفط إياه وحويا وحي أي تعليد لجلد دجالمه وحنحرك وقصة أروريا علمك تصوفك وحي أتاجن يهي نفط السيد الله صافي جرين لها أو حمانة الله صافي جرين لها هي معصرة إلهينا الله حير لها أخلاق وناكسن الله قدق لها ظاهرية باطن قفك وسنة ديفين لها ومعنا وحويان قفك وحو ككوبن yahay laba qaybood qaybtan jirkeeda sare iyo qaybta qalbiga hoose labada qaybood buu ka kooban yahay labadii qaybood marka cilmiga tasawufku saameyn buu ku leeyahay ilaalintooda iyo saafi garanta labada dhinacba tasawufku walaalayaal waxa kale uu ku qeexay sheekhi looran jiray Sheikh Ahmed Zaruq rahimahullahu ta'ala تصوف كمركو تلمامي أيا وحوري التصوف علم قصد لإصلاح القلوب وإفرادها لله تعالى عما سواه والفقه لإصلاح العمل وحوري علمي قال لي هذا تصوفك وحلو دتيي إن قلوب تلقوا إلاليه أو قلبك لقوا إصلاحيه أو قلبك وويلك ugu muhiimsan ee qofka bil aadamka uu leeyahay hadii qalbigu uu hagaago xubnaha kalena way hagaagayaan hadii qalbigu uu xumaadana xubnaha kale way xumaanayaan sidii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu inoogu tilmaamayay marka wuxuu u taagan yahay tasawufku wanaajinta qalbiga ayuu u taagan yahay iyo quluubta in lagu kali yeelo ilaahi subhanahu wa ta'ala oo wixii isaga ka soo hadhayba qalbiga laga saaro halka fiqigu uu taagan yahay amalkaagu inuu ansaxo oo tusaale ahaan arkaan baa loo xidhayaa amalkii shuruud baa loo xidhayaa sunnayaal baa loo xidhayaa fiqigu amalkii ayuu toosinayaa tasawufkuna qofka qalbigiisii ayuu toosinayaa halka cilmiga aqeedada loo dajiyay xujooyinka waxyaabaha la aaminayo in lagu sugo isla markaana si yaqiin ah loo sugo oo iimaanka lagu qurxiyo si yaqiin ah loogu qurxiyo halka cilmiga naxwada loo dajiyay in carabka lagu ilaaliyo laxniga lagaga ilaaliyo culumtu marka saasay u kala qaybsan tahay marka cilmigan la yiraahdo tasawufku waxa weeyaan xubinka uu ku qaybsan yahay iyo meesha qofka bil aadamka uu waxa weeyaan uu kaga qaybsan yahay waa meeshii ugu muhiimsanayd weeyaan waxa maqaalka isagana soo naqlinaya oo uu ku qoran yahay qawaacidu tasawuf kitaabka la yiraahdo qaacidada 13 ayaa markaasi uu ku qoran yahay maqaalkaasi oo uu iska leeyahay Abil Abbas أحمد الشهير برزوق الفارسي شيخ خاصة اسكال كتاب كاسي تصوفك وحيساقنا كهاد لي شيخي وينا سيد طائفة الأورنشري والإمام الجنيدي وأيمدي سلفك كمدا وحوليه هيساقنا مركو علمك تصوفك وقيحي يوحا ويهي يا حقيقة سوحي تهي أيا وحول التصوف استعمال كل خلق سني وترك كل خلق دني تصوفك وحويان إن لا استعماله أو لغو دقمه أو لغو عمل فله أخلاق كستو أوصر ريسوي أخلاق كستو شريعة الإسلام كوي أمانتي أوصر ريسا أو لغو عمل فلا وبالتصوف بولي sidoo kale tasawufku waxa weeyaan akhlaaqda liidata xaasidnimadii cujbigii iyo waxa weeyaan isla weynidii
iyo waxyaabaha noocaasi ay ka mid yihiin oo la iskaga tago oo laga fogaado ayaa tasawuf la yiraahdaa culimada sidan u qeexaysa waa culimadii fannigan looga dambeeyay ee la weydiinayay ma huwa tasawuf ayaa sida u qeexayo oo cadeynaya cilmiga tasawufku waxa uu yahay waxa kale oo culimadu ay ku qeexayaan tasawufka at-tasawuf kulluhu akhlaaq faman zaada alayka bil akhlaaq zaada alayka bit tasawuf tasawufku dhamaantiiba waa akhlaaq waa qofka khuluqiisa oo la toosiyo oo shariicada islaamka lagu toosiyo oo nafta iyo waxa weeyaan wixii ay jeclayd lagala dagaalamo shahawaadka laga xidho waxa weeyaan tarbiyeyntii nafta weeyaan ba tasawufku qofka hadaba akhlaaq ku kordhiyaaba tasawuf ayuu ku kordhiyay waxa soo naqlinaya inuu tasawufku uu yahay an-nusra an-nabawiyya ayaa kitaab uu ku qoran maqaalkaasi leh li Sheikh Mustafa al-Madani uu iska leeyahay Imam al-Junaydi oo maqaal horaan ka soo naqlinay isagu waxa uu geeriyooday hijriyadu markay ahayd 297 ayaa sheekhu uu geeriyooday waxa isna tasawufka qeexitaan ka sameeyay isla markaana cadeeyay waxa uu yahay xaqiiqadiisu sheekhi weynaa isna la oran jiray Abu al-Hasan ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala waxa isaguna uu ku qeexay at-tasawuf tadribu an-nafs 'ala al-'ubudiyyah وردها لأحكام الربوبية تصوفك وحويان وإن نفط وحويان عبادة الله قل الله إليه الله قل الدقاء سيدي عبادة النفط أي أقدا لهي تصوفك وإن نفط اللوع إليه أحكام الربي إن يوهب جان سمته أي تصوف ليلة سيدا وحكو قيحية أبو الحسن الشاذلي الشيخ الأورنجري وحنا مقال كاسو نقلنا نور التحقيق كتاب كالليلادو لعلامة حامد صقري وليهي شيخ اسيوس كليهي صفحة صدحيو سغاشتنات بو كسو نقلنا waxa uu geeriyooday Abu al-Hasan ash-Shadhili hijriyadu markay ahayd 600 iyo 56 ayuu geeriyooday waxay culimadaasi marka la soo ururiyo tasawufka ay ku tilmaamayaan inuu yahay cilmi loogu talagalay in uu qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku xidho oo culumta kala lamida gaar ahaan saameyn ku leh nafta iyo sidii loo tasqiyeyn lahaa ee dunuubta iyo macaasida waxa weeyaan looga tasqiyeyn lahaa ee nafta loo jilcin lahaa ee qalbiga loo saafi garayn lahaa waa cilmi ku saabsan weeye